Soomaalida waxa lagu sheegay inay yihiin dad isku day badan oo entrepreneurs oo meel kasta ay tagaan aan rabin in dad u shaqeeyaan raba inay business ayaga ay leeyihiin iyo hawlahaas ay bilaabaan laakiin badan aniga intaan ka arkay adaa rabaa inaan fikradaada ka ogaade way isku dayaan laakiin they never scale malaha business or organization weyn or network weyn laho koro oo multinational Soomaalida ma yaqaanaan si loo dhiso dukaan yar xalaal yar maqaayad yar halkaas bay badan ku joogsadaan waxay kula tahay sababta hortoogo wax walba waa yaraan bay ku jaamacadan weyninka ka badatay oo adduunyada ugu lacag badan hal qol bay ku bilaabatay safiican hal qol marka anigu lama yaabani in dadkan waa ku cusub yihiin wadankan inay meeshay hawl ka qaban karaan inay ka qabtaan oo ay ku bilaabaan taas wax walbana waqti bay leeyihiin waa jiraan Soomaali maaragtay aad iyo dhinaca ugu mid milyaneer ah jiro reer Indianapolis Isaac waxaan ba arkay business wuxuu ku leeyahay basaska maaragtay airport yimaada Limouska iyo basaska yimaada Istanbul airport qaar buu asaga leeyahay Istanbul airport Turkiga ma sha Allah magaciisa ku qoran Royal ma kale u bixiyay marka waxa way dadku wax walba oo tartiib bay ku bilowdaan jaamacadda Indiana University waxay ahayd college oo macallimiinta lagu diyaariyay waxay ahayd daarta weyn kaliya bay ahayd hal daar kaliya ahayd marka waxa walba tartiib inay ku bilowdaan marka jiilka oo horeeyay oo cusba Soomaalidu waxay u badan yihiin dad reer miyi u badan waxay been reer guuraaga u badan yihiin sax yani waxa ka muuqata dhaqanka reer guuraaga wada dadkan iyo wax meel walba inay la qabsan karaan waaga aan ku leeyahay adinka horta miyi inteed adiga miyi marna ma tagto 10 sano ku gaaran 10 sano noloshayda baadiyan joogo horta wuxuu noqonayaa qof adag oo waxba aan ka gabanayn yani waxa way Soomaaliduna waa leedahay waxaana ka keenaya reer guuraanimada ka keenaya qofka reer guuraaga ah Quraanka leeyahay 40 sano oo saxraaga ay ku lunsanaayeen waxa way jiil cusub oo maaragtay waa problem solving mar walba mushkilad baa ku hortaagan waa dad reer guuraa ah oo meel walba ay tagaan la qabsan kara